munaasabad ballaaran oo lagu shaacinayay musharax Bila Cabdi Gooh ayaa maanta lagu qabtay hoteelisha Caynaba magaalada Caynaba. munaasabadan oo si heersan loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay cuqaal haween aqoonyahan tiro badan oo kamid ah taageerayaasha musharaxani. waxaana ugu horeynba ka hadlay siyaasi Nuur Qaasin Qodax oo kamid ah guddiga soo xushay musharaxan cuqaasha iyo waliba waxgaradka musharaxani oo sheegay inay ka siman yihiin taageerada musharax Bila Cabdi Gooh. هذا ما تزوجه وعوض مشرع على بلا عبد الله صراحات أوري فراد نبي أنا شيء جهدان وهاي اللي هو شيء ما هو يذكر واحد من الفراد اللي مقاتل فهذا ما يدري كيف تحدي هجران الله هاي وأنا ودري إن أنا ما يقدر نفع يجوا ليش مني وجه كذا كم صار وأنا وقال waxgaradkii kale lagu soo marti qaaday ayaa uga tusaaleeyay aqoonta durugsan ee ku duugan musharaxani isla markaana sheegay inay taageersan yihiin dhammaantoodba beerahaan ka cuqaalahaan dhammaantayo markaan habka cuqaasha ku hadlo waan soo dhaweynay waxaan idiin sheegaynaa inaanu maanta bilad diyaar u nahay waxaan rabbu had iyo jeer aale inkastoo ay yihiin marka shirka la isugu yimaado ilaahda dumar iyo haweenba codeey hadii dhow isugu yimaado waa kana waa diyaar horta marka hore beeshan soo dooratay ee aadan baayo ee iska raacday inay soo doortaan Bila Cabdi Ducaale waxa weeyaan horta marka hore uma ay dhaafine si wanaagsan bay u soo doorteen reerka wuxuu yiraahdaa halkaan isma hawshu socdo musharax Bila Cabdi Gooh oo gulaanadkii xafladani soo xidhay ayaa mahadnaq kadib waxa uu yiri rajii afkayga ku hadlayay ee soo sharaxay ee halkan keenay hadaldan rag waxaan ku maamuli lahaa ama ku maamuusi mase inaan nahay oo toliyo metano tahay taasaniga dardaarankaygu yahay masdax salabaasige hoon cable TV Caynabo.